الحمد لله ثم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أيضا مهدنينا عليه مركلة نو كلنسي هودا نو سورتقلي صوم كيني قيام كيني صدقوين كيني عبادوين كأن سمينين أودان الله نجواد أقبل ولا ليان. هذا وقفك الصومان ولا ليال وحيال بدن أي حاران كأه أرنك عن رب مانت إنن إذا نوداجا أيو كميدي هاي أرماس حاران تأه وما حدا أرنك عن مانت رب إنا إذا نوداجا وقفك سمعي قلما مالن رمضان آيته يدم بيجي وين كدالنايا maalin ramadaan qofkii xaaskiisu ku dhaca dambi weyn ayaa meeshaas ka soo raacaya. dambigaas waxa uu weheliyay haddana kafaaro culus ayaa ku waajibaysa. kafaaro culus ayaa ku waajibaysa. jaa rajulun ila nabiy sallallahu alayhi wasallam faqaala, nin baa nabiga u yimid sallallahu alayhi wasallam, markaas wuxuu ku yiri rasuulkii allow halagtu waan halaagsami rasuulkii allow. nabigu wuxuu ku yiri wamaa ahlakaka, war maxaa ku halaagay nabigu wuxuu yiri maxaa ku halaagay. waa la yaab ninka. markaasaa wuxuu yiri rasuulka ilaahayow xaaskayga ayaan ku dhacay maalin ramadaan ayadoo ay tahay. yaa allah u fiirsa, habeenkii waa loo ogolyahay, maalinkii waa 12 sac. 12 sac oo adkaysan way. ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay uxilla lakum laylata as-siyaami ar-rafathu ila nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahum. habeenkii waxaa idinla xalaaleeyay xaasaskiina inaad u tagtaan, inaad jamaac samaysaan waa idinla ogolaada habeenkii. maalinkiisi soomaha iska ilaaliya. ninkaa nabiga u imaanayo maalinkii ayuuba iscelin waayey, waaba iscelin waayey ninkii. dabeetana wuxuu ku dhacay xaaskiisii. maxaa dhacay haddaba? nabigu wuxuu yiri hal laka raqaba, macnaha qoor aad xoriis ma heli kartaa. addoon aad xoriis ma haysaniyo. nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam ninkii isaga ahaa mayuu yiri rasuulka ilaahay, addoon aan xoreey ma hay. wuxuu ku yiri 2 bilood oo israacraacsan oo hal berin dhexda aan laga bixinin ma soom kartaa. markaasaa wuxuu yiri balaayada oo dham soo soon ma waxsaan ii galay. yaa waxa dhibkaan dhan oo ii geeyba Soomaalin ramadaan soomaha adkaysan way yiri. wuxuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam 60 maskiin ma quudin kartaa. markaasaa wuxuu yiri ayadana ma karaayo yiri, maxaa yeelay nin faqiir ah ayaan ahay. nabiga markuu intaas u dhahay, ninkin uu leeyahay mahay wax kasta uu leeyahay ma sameyn karo, uu leeyahay awood ma leh, uu leeyahay nabigu waa isaga aamusay. ninkin meeshu iska fadhiistay. wax yar kadib nabiga waxaa loo keenay dambiil oo markaa timir ay ku jirto. dambiish maxaa ku jira? timira ku jirta. nabiga saan ogsoonahay walaalay aad la socotaan, sadaqada xaaraan bay ka ahayd. hadiyadaha ayaa loo xalaaleeyay.
hadiidaha wuu qaadin jiray, xalaal bay u ahayd, laakiin sadaqada ahlu beytka sadaqada xaaraan bay ka ahayd. marka dambiil oo timir ay ku jirto oo hadiyad ah ayaa loo keenay nabiga sallallahu alayhi wasallam. nabigeena u fiirsan naxariistiisa, isla markii isaga naftiisa umuusan dhiganin ee u fiirsan ummadiisa ayuu u naxayaa. dambiishii loo keenay ciddiisna marka ayada waxaa laga yaabaa rasuulka inaysan waxba haysanin, ay gaajo ku sugan yihiin sida qaalibka ah. nabiga guryihiisa marar qaar waxba lagama heli jirin. Caaisha waa tay lahayd 3 bilood ayaana soo martay oo labadii madmadow moogi wax kalaba aan gurigeeni aan laga cunaynin. labadii madmadow baa maxay? biyo iyo timir baan 3 bilood aan cunaynay Caaisha, oo wax cunno ah aan guriga laga helin. u fiirsan ayadoo sidaas ay tahay, dhibaatadaas ay jirta, ayuu nabiga haddana wuxuu dambiishi markii loo keenay muusan naftiisa umuusan dhiganin. wuxuu yidhi war aawi ninkii hadda dhow lahaa sadaqada waxaan ku bixi mahay. ninkii mar hore meeshuu fadhiyay meel dheer muusan jirin, rasuulka allah waa ikan. markaasaa nabigu wuxuu yidhi dambiishaan timirta qaada oo orodoo sadaqaysoo yidhi. ninkii wuxuu yidhi aclaa afqara minii, rasuulka ilaahayow ma waxaan ku sadaqaystaa cid aniga iga baahi badan? yaa allah, bal u fiirsada ninkii waaba la kari la-yahay, wuxuu la soo taagan yahay aniga wax iga baahi badan maba lahan. wallahi maa bayna blaabatayha ahla beytin afqara min ahli beyti. uu yidhi wallaahi aan ku dhaartay yidhi wax qoyskayga qoys ka baahi badana maba jiro. uu yidhi magaalada madiina. nabiga muusooday, wax lagu muusoodo waa soo maa. nabiga ayaa dhoola caddeeyey oo la yaabay ninkii arrinkiisa. markaasaa wuxuu yidhi haddaba orodoo ehelkaada sii soo yiri. riwaayad kale waxay sheegaysaa inuu nabiga yiri maalinkaasna soo qalay. haddaba ninkii xaaskiisa ku dhac maalin ramadaan ayadoo ay tahay oo adkeysan waaye 12 saac bas, habeenkii waa lasoo ogolaaday sooma. habeenkii waa lagu ogolaaday, maalinkii aad adkeysan weysay 12 saacadood weeyaan bis. 12 saacadood weeyaan waxaa ku waajibaya 3 kafaara siduu nabiga isu dabdhigay. sidaasaana loo kala horumarnaya. qoor waa inaa xoreysaa, awood ma u haysaaniyo may 2 bilood oo is raacsan. laa ilaaha illa allah. 12 saacadood la adkeysan waaye. 60 maskiin umaba la karaayo sooma. dhaqaalahaas yaabaha maanta dadka dhaqaalahayba ka cararaan sooma. haddaba iska ilaali, maxaa yeelay dambi weyn weeyaan. towbadaa lagaaga baahan yahay, kafaaradaa lagaaga baahan yahay, soo qaleyntaa lagaaga baahan yahay. waa arrin qatarteeda leh. su-aala imaanayso, xaaskana ma laga rabaa? maxaa yeelay labadooda waa wada sameeyeen soo maha, keligiis ma aha. sida raajixa ah maya, lagama rabo gabadha. maxaa yeelay wax daliil ah oo arrinkaa ku tusinaya ma laha. nabiga muusan dhihin xaaskaada ayadana sidaas oo kale ha samaysa, muusan dhihin. haddii daliil aan la haynin gabadha laguma laha. ninka keliya unbaa lagu leeyahy. oo maxaan ku irahdaye, maxaa yeelay walaalayaal ninka iyo gabadha yaa badanaa wax qasba. ninkaa wax qasba, gabadha waa xishood badan tahay. gabadha waxaa asal u ah xishood. gabadha badanaa ayadoo ninka u baahan haddana ma dhihi karta wadna lagu dhaha ma haysa ay ninka ugu jirta malaha. laakiin badanaa ninka ayaa wax muquuniya, ninka ayaa xoog wax ku muquuni. walaalayaal runtaan isu sheegna. saas darteeda gabadha waxba loogu lahayn. hoosha waa gabadha badanaa waa la qasbaa. marka gabadha waxba laguma laha, ninkay kafaarada ku waajibaysaa. intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaaga maantay, inaynu iska ilaalina arrinka
إلهي سبحانه وتعالى هنون حريص دمان تيدا وحي قلدات إلهي سبحانه وتعالى هنقع فيه حدaba waa walaalkiin khayrka idin la jeclaa mar walbeeta idinkana sidaas si lamid ah inaad usii gudbisiin ayaan idinka codsanayaa dhammaanteena waa ducadaanay soo maha dhammaanteena ducadaanay dhammaanteena shaqaalaanay shaqaalayaal diineedaanay soo maha ilaahayaan shaqaalo u nahay dhammaanteena marka walaalaheen aan gaarsiina channelka hala taageera oo subscribe ha lagu sameeya intaan ku kulmayna فيديو xiga هذا وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم باركم الله فيكم